Soomaaliya waxay qabtay rajo weyn markay maqli jiray SPM, SNM, USC maxaa ku dhacay marka delaykaas seebuu u dhacay oo ay u soo gaartay 1992 بسم الله الرحمن الرحيم waxawey aad iyo aad baad u mahadsantihiin su-aasha iyadaa haddii aan si kooban uga jawaabo waxay la tahay dhammaan dadka Soomaaliyeed way la socdaan sababta keentay delayga isaga ama dib u dhaca isaga ah in yaran ka ilaahdo waxa weeye jabhadaha xaqudirarka ah ee halganka u weysan Maxamed Siyaad kaga soo horjeeday oo markaas ahaa 3 SNM USC SPM markii ay suura galiyeen inay ka qaadaan dictatorkii xukunka ay kaga saaraan muxuu ahaa wadanka waxaa dhexda ka boobay niman muxuu ahaa isku tilmaamay in la yiraahdo manifesto waxaan ugu malaynayaa sababta ugu weyn ee delayga keentay in ayaga tahay waxay hawlgalkoodii muxuu noqday maxay sakay rajada bariya والله رجال بريان وحنو أركا إني رجال وين جرتو ودكتورتين سيدي مركي أورك SPM صلى سعطان هلجن كيسي وحوسو حري قبل هذا بقول يباي وحوري يمد إلا يكنترول كحمل يمد إذا ما للوجوي ونمن كاسس يحنو وشيكية صلى سعطان وير كردراء oo lama filaan ah iyadoo ururku ku maqan yahay inuu dib u sii xoreeyo tuubooyinka ku soo qaaday marka muddadaas oo dhan waa la kala maqnaa hadda ururka USC seen la socono isaga laftigiisa dhibaatooyin fara badan baa waagaas iyada ka qabsaday afduub baa ku dhacay ururka waxa suurtooday inay iska hor keenaan marka ayagu hab qabiil isticmaalay magacna leh waa ururkii SPM iyo ururkii USC afka ka oranaya in ay ummadii soo horkeenan hab qabiil haatan waqtigan la joogay xaadirka waxa la soconaa in xaraaga muxuu ahaa la socotaan baan filiya in xaraagi muxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre ragii wasiirada u ahaan jiray rag la mid ah oo ayaguna qaabka qabiilka ku soo guda galay muxuu ahaa ururka SPM inaan dagaal isku la jiro haatana aanu wax yar nooga harsan yihiin muxuu ahaa gabagabeyntii hawlgalkaas ama dhamaystirkii dagaalkaas wax yar baa nooga hadhay USC-na waxaan deegaanba aad xogaal u tihiin in muxuu ahaa qoliyaha ayaga ahaa dagaalka ay ku soo qaadeen ay kaga guuleysteen ururku ku guuleystay rajo weyn baan hadda qabnaa maxaa ka nool boqolkiiba intee la ka nool manifestadii joint communication-kii ay wada saxiixeen USC SPM SNM October manifestadii October oo saddexda urur ee xaqudirka ay wada saxiixeen wada jir wada saxiixeen maxaa maanta ka nool manifestadaas ma dibba maartay loo fiiriyay oo kulligeed waxa wada gashay discussion mase wali waxba ka nool annagu wali waxaan u hogaansanahay manifestkaas ay wada galeen saddexdaas urur hore u wada galeen xaqudirka waxaynu wax isbedelo xaqiiqo ka jira ma jiraan la diyaar baan u nahay in sidii loogu talagalay ay u fusho okay Maxamed Cumar Jees waxa lagu doortay democratic election baa dhacay dadkii ku agtirsanayay SPM ay u doorteen una muujiyeen rabitaankooda mudane Maxamed Cumar Jees isla markaas 15 maalmood kama ay soo wareegin 20 maalmood waxa dhacay khilaaf weyn baa dhacay ka dhacay SSDF ama SNF waxaan kaas si khilaafka seebu ku yimid seebu u soo dhaxgalay maxaa la yiraahdaa SPM sida runta ma ahayn dhowr 10 cisho kadib maalintii doorashada socotay laftigeedii ayuu dagaalkaas bilowday hase ahaatee dadkan islaanaya kuwa magac dhuudeen SNF iyo SDF maaha waxa weeye dad uu ku adeeganayo Maxamed Siyaad Barre wasiirro u ahaan jiray dad ay dabada ku wataan ayaa muxuu ahaa u sababa dagaalkaas maaragtay sababay ujeedada ay arintaas ku dhacdana waxay ahayd ayaga oo rabay in ay ayagoo hab qabiil isticmaaliya magaca waliba khaasatan daaroodka isticmaaliya waxay rabeen ama soo jeediyeen in laga faa'iideysto dagaaladan ka socda xamar oo la wada weeraro
kaasoo ururka SPM uu diiday soo kana hor istaagayna sababta ugu weyn taas ay ahayd afduubkii oo haday rabeen inuu u socdo anaguna aan ka hornay taas maaragtay keentay laakiin ma beela islaynaya ma waa inuu adeegisa maaragtay ninkaas saga anagu muxuu ahaa sidaas horeba afka ugu dhufatay ama lala wada socdo ururada saddexda ayaga waxa ka dhaxaysay heshiisyo ay hore u wada galeen oo laba ahaa heshiisyadaas oo maaragtay aan noogu muuqato inay tahay sida kaliya maaragtay lagu heli karayo ummad u heli karto dawlad dimuqraadiya waxa weeye waxay la tahay oo ku rajo weynahay in gaar ahaan USC iyo SPM oo hadda ayagu isu dhow oo gobolada koonfur labaduba ku sugan si dhaqso ah ay u fulin doonaan arrinta ayada walaalaha iyaga SNMna waxaanu ku rajo weynahay ayaga laftigooda inay maaragtay ballanka isaga sidoo ah u fuliyeen question ugu dambeeyay Kismaayo xaaladeeda maxay ku sugan tahay maanta 27 Febraayo 1992 sidaad maqasheen muxuu ahaa si kaliisa ayaa muxuu ahaa weerar lama filaan ururku isagoo ku jira muxuu ahaa doorashadiisii lagu soo qaaday urur dib u gurasho ay ka soo sameeyay ciidamadiisa ay ka soo sameeyay magaalada Kismaayo iyagoo waxyaalo badan xiirinaya marka waanu la hadalay waanu u sheegnay maaragtay muxuu ahaa in ay isdiibaan dadkaas iyaga oo uu hogaaminayo General Morgan oo garanaysa wasiirka difaaca ee hore Maxamed Siyaad Barre isaga iyo ragga la shaqeynaya inay isdiibaan dad maata iyo dad maaragtay deegaanka iyo muxuu ahaa magaaladii oo idil inuu dagaal ka dhaxdhaco ayaanu intaas oo dhan ka taxadaraynay way hareeraysantay magaaladu waana go'doon waxaanu jecel lahay maadaama imika loogu taag waayay inay arrinta ayada ay fuliyaan oo waliba u saahan qaldaageen inay waxyaalo kale ku kacaan waxaan ku kalifanahay inaan muxuu ahaa weerar ku qaadno waxaan ku rajo weynaa dagaalkaas inuu san dheeraan doono inuu ka badan yahay wax kaba xishoon maalin xubno ka tirsan golaha dhexe ayaa la socda iyo madax ciidanka waxaan weeyay labada ugu Ali Dubay iyo Sheekh Cabdi labada golaha dhexe